masaajidka horta markii la goobahay asagoo dhisan oo iska caadi lama gubin waa la dumiyay cagafyaa la gashay barnaamijyo badan baa la gashay goobta la dhigay walaal raadiyaha waa ku dhawahay saddex baan ugu dhawahay anigu waa ma ay Abdullah yiraahdo dadka deegaanka kamid ahay dhacdo aan hadda korbadaan aan hadda kor meelahan ka dhicin baa maanta marka dhacday meelahan gobolada dhaxana horta barnaamijkaas aad buu u jiraa dad inta maartay yiraahdaan baan ijtihaadnay oo qablada aan ku ijtihaadnay oo meeshii hore lagu tukan jiray meel aan ahayn ku ijtihaaday baa horta jira magarat deegaanadan galmudugna way ku badan yihiin oo ilaa iyo dhowr masaajid oo noocaas oo kala ka dhisan ilaa 5 iyo 6 gaari soo magaalooyin badan oo hadda galmudug kamid ah ku yaala haye magaaladana xogaa kuwaas way ka duwan tahay oo waa meelaha hal maartay dariiqa iyo hal maartay sheekh oo ku aasan yahay meesha maartay kuwaas kala xogaa way ka barnaamij bedelanta haye marka sidee wax uga dhaceen caawa halka iyo maantaba walaalo horta masaajidkii dadka deegaanka oo dhan baa diidanaa culimada diidanayd shaqada diidanayd magaradka diidanaa masaajid badan oo ka horeyso meelahan deegaanada nolol ka dhacday oo fidnad badan ka dhalatay jiray dad badan isku laayeen kana xataa markii la dhisay hal tujiyaad yiri magarad haye baadaba markii la dhisay kadibna waa laga hadlay waxa la yiraahdo dad isteen qalba inaad isteen lama rabin aan xal ka galno oo maalkii hantidii ka gashay hal idin celsho aduunkana barnaamijkaas ka tanaasulo dadkii la noolaadaan magarad aad iyo aad adugu dadkii way kala qaybsameen intii badanayd barnaamijkii way ka noqdeen qarsh la siiyay qaar waaltinimo ku fogay qaar basiir ku fogeen haye adugu dhowr dad yar oo shakhsiyaad ah baa ku soo haray iyadana lacagna ku qaadan bayno wax kala ku qaadan bayno kana tagamayno haye barnaamijka marka waa la guda galay dadkii deegaanka oo dhan oo saraasada dadka degmada hawsha ku nool oo dhan oo dhameystiran baa barnaamijka galabta galay hadda dhawaato weyn oo gaarana kama dhicin wax yar iska arbishad yar ku sameeyayna waa qalmaad oo hal mariyay haddana deegaanka xalkiisuna waa degan yahay baakasna waa la barnaamij waa la dhameeyay oo maartay baakasayski waa la dhameeyay haye marka maadaama uu dadkii meeshan joogay oo dib ku noqday siisana waxaan sheegay hadii dib loo arko maaragtay isleeyahay ama maaragtay didna ka weyn ay ka dhici kartaa ama la isku laayaa ama ay maaragtay dadka inay dadka la kala haysto maaragtay qolo meel ku bida ay ma tahay la siraado sida horta hal loo arka hal baa hal noqdo aad iyo aad xadiis nabana waa jirto oo yeenugu macniisu aha dadka kullu baadil kuma kulmaan haye marka walaal anagu badana dadkii deegaanka ay degmada u shaqaanahay sidaas baan xal u aragnay dadkii meelaha deganaa iyo cuqaashi iyo culimada dadkii waa isla qaateen sayidkaasna waa kala dushay haddeertan dadkii qaarna waatan ku sheegay hada wixii hore u qaateen dadka hadda meesha ku harsanaa oo dabaalkii laga dumiyena haddana dadkii degmada deganaa waxaan diyaar u nahay inaan qiimihii ka galay 3 jibaarkeed inaan sina diyaar u nahay aan xal marino oo maadaama ay xawaa dhisanayeen Abdalle waxaan xog ku helnay in la gubay masaajidka masaxba oo gubitaan masaajidka lagu la kacay ayaa jira masaajidka horta markii la goobahay asagoo dhisan oo iska caadi lama gubin waa la dumiyay cagafyaa la gashay barnaamijyo badan baa la gashay goobta la dhigay jeengadi kor saaray markii soo dhacday oo jeengadi yaal waaxidii wixii waa baad lagu dhijay maahan intii kale hadda intii kale dhulka caadi loo dhigay mana aysan guban waxa gubtay waa jeengadi yaal waaxidii bas way sababihii iyo asbaabihii masaajidka loo dhisay waxa ay ahaayeen in lagu cibaadeysto soo marka ma mudneen in masaajidka uu meeshiisa si ahaado khilaafaadka yar ee jirana la xaliyo walaalo horta way ahayd laakiin waxaan ku leeyahay tarina wataan ku sheegay waxaan ku leeyahay dib ka weyn baa ka dhalanaya haddaan dib ka dhalanayn ama aysan maarta wax kale ka iimaanayn waa la iska dayn lahaa haye dibka ka dhalanaya marka waxa ka dhalanaya inay maarta dadka inta lagu kala qaybsamo qaybna ay xagga difaaca ka gasho qaybna ay dhaca kala noqdaan in la isku dagaalo ama maartay maadaama ay dadkii deegaanka deganaa kulli ay ka soo horjeesteen barnaamijkan dad yar oo fara ku tirisa oo kamidana ay barnaamijka wateen haye sidaan baa xal loo arkay in maartay baalkana la dumiyo nimankaasna wixii ka galay loo celsho barnaamijkaasna hadda barnaamij qablada lagu tukan jiray ka dhisan maahan wuxuu ku dhisan yahay soo hadda ka dhul qaatay waa dhaw GPS ya lab loo adeegsado harkaas loo tukanayo bari xaqooda ay hadda qorax u dhaca haye hadda saminkii rasuulkana sallallahu alayhi wasallam ayana waa jiray masaajidda noocaas oo kala oo la dumiyaa jiray oo dad munaafiqiin ay dhisteen nagu amray in la dumisho way jiraan waxa dumiyeen waa rasuulkii asxaabtii ay ahaayeen oo dib baa loo arkay kana sidoo kale dib baa loo arkay sisan shay oo dib loo arkay sida
bal hadda waa sidee Cabdalla goobtii masaajidka laga dumiyay iyo guud ahaanba degmada dhaqdhaqaaqeeda walaalow haddeertan wax hadda dhaqdhaqaaq gaar ah ma jiraan xaalku waa degan yahay baalkaasna waa tan ku yaala dadkii meesha deegaanada dhan kulligoodna waa ka qayb qaateen oo hadda maartay wala gaar iyo dad gaar ah hadda shakhsiyan lagu eedeyn karo dadkii deegaanka oo dhan ba ka qayb qaatay marka hadda jaw waa degan yahay hadda maartay marka hadda wax xasarada iyo wax buuqa midna ma jiraan baalkan halkaas oo sheekhu uu isku dhamaado ugu dambeyntii marka maxay tahay fariinta ugu dambeysay ee aad diraysa ee la xiriirta duminta masaajidkaasi ay aad halkaas ka sameeyay waxaan dirayaa in fariinta ugu dambeysay waxay inay walaalaha dadka muslimiinta wax loo sheegay aysan maartay soo qaadan wax masaajid la iska duminayo oo dadku karbaroodeen horta inay soo qaadan oo ay u qaateen masaajidta horta ay u qaataan masaajid maartay meeshii lagu tufin jiraan ayna meel kale u dhisan oo qablayso sax aysan ahayn dadka ka maakan asoo kale waa inay wadanka ka dhisaan waxaan u baaqayaa inaysan arrinkaas kale isku daarin meelaha kale oo ka dhisayaan waxaan u baaqayaa sarkooda inay wax laga qabto aad baa idin salaamay adiga iyo radio Simba kulligiin way salaamaya